kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa Faafi TV ku soo dhawaada warka habeen ee Faafi TV waa 24 bisha 8 sanada 2020 qodobada aad ku daawan doontaan warka habeen ee Faafi TV waxa kamid ah maamulka gobolka Banadir oo soo saaray amar ku socda iskuulada ku yaala gobolka Banadir qarax qasaare kala duwan dhaliye oo ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaya maamulka Galmudug oo bilaabay howlgalla amniga lagu xaqiijinayo kana bilaabay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug akhbaraadka caalamka aad warkeena ku daawan doontaan waxa kamid ah dadkii ugu badnaa oo ku guriya beelay daadad ka dhacay dalka Yemen daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka habeen ee Faafi TV hadii ay tahay markii kuugu horeyso aadna soo booqato ha ilaawina tira subscribe kadibna furatid calaamada gambaleelka si aad ula socoto wax walba aan soo galina channelkan markaan ku soo dhawaada warkii oo inta ka faahfaahsan maamulka gobolka Banadir ayaa soo saaray go'aano ku socda dugsiyada waxbarashada ee dalka qoraal ka soo baxay agaasimaha waxbarashada gobolka Banadir ayaa waxa lagu amray dugsiyada gobolka Banadir inay soo diiwaangeliyaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxa ku yaala tiro dugsiyo kuwa ugu badnaa waxaana Muqdisho dugsiyada ku yaala lagu qiyaasaa in ay yihiin kuwa ka badan dugsiyada ku yaala gobolada dalka oo idil marka la isku geeyo waxaana maamulka gobolka Banadir xilligan amarka uu soo saaray uu yahay in uu soo diiwaangeliyo iskuul walba iyadoona iskuulkaas loo diiwaangelinayo in uu yahay iskuul ku yaala gobolka Banadir kana howlgala tirada macallimiinta ardayda maamulaha iyo milkiilaha ayaa la diiwaangelinayaa iskuulada ku yaala gobolka Banadir waxaana talaabada xilligan ay ka dhawaajiyeen maamulka gobolka Banadir ay noqonaysaa mid aan hore u jirin balse ku cusub shacabka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka maadaama hore maamulka gobolka Banadir uusan u soo saarin amar noocan oo kala waxaana dad badan ay ku tilmaameenba markii uu soo baxay amarkan in maamulka gobolka Banadir uu qabtay hawshii loo baahnaa inay qabato wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana jira dad kale oo iyagana ku tilmaamaya talaabada maamulka gobolka Banadir uu ku soo saaray amarkan in ay tahay mid maamulka gobolka Banadir uu kaga faa'iideysanaya waqtiga kala guurka oo dalka xilligan ku jiro maadaama xukuumaddii hore ay baarlamaanka kalsoonida kala laabteen xukuumad cusubna ilaa iyo hadda aanan la soo magacaabin taasina ay keenayso in maamulka gobolka Banadir uu ka faa'iideysto arrinta taalo saadaraaddeedna dugsiyadu ay soo diiwaangeliyaan waxa intaasi sii dheer oo wararka qaar aanu helayna ay sheegayaan in dhammaan dugsiyadan laga doonayo lacago kuwaas oo lagu diiwaangelinayo dugsi walba hawsha uu qabto macallimiinta tirada ardayda iyo degmada uu ku yaalo iyo sidoo kale waaxda xilligaas uu dugsigu ka dhisan yahay lama ogo talaabadan diiwaangelinta caqabad inta la eg ay ku noqon karto maamulada qaar ee iskuulada dalka maadaama hadda meesha ugu horeysay ay ka bilaabatay ay tahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaana dadka ugu horeeyay noqon doonaan iskuulada ku yaala gobolka Banadir oo uu diiwaangelin doono maamulka gobolka Banadir waxaana dad badan ay ka warsugi doonaan talaabadan iyo sida ay ku dhaqan gasho maadaama maamulka gobolka Banadir uu xilligan shaaciyay in wixii hadda ka dambeeyay iskuul walba uu soo diiwaangelin karo faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax qasaare kala duwan dhaliye oo ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose wararka laga helayo degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay sheegeen in halkaas uu ka dhacay qarax geystay qasaare isugu jiro mid dhimasho mid dhaawac qaraxan oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu ka dhacay suuq hoose ee degmada Walaweyn waxaana goobjoogayaal halka ku sugnaa ay noo xaqiijiyeen in qaraxaas ay ku dhinteen laba ruux oo shacab ah qof kalena uu dhaawac ka soo gaaray wali ma cadda cidda ka dambeysay qaraxaas iyo dad kale la damacsanaa waxaana xilliga uu qaraxu dhacay suuqa uu ahaa mid mashquul badan oo ay socdeen howlo ganacsi oo aad baaxad u leh isla markaana dadka ku nool degmada Walaweyn ay dukaamaysi xilligaas u tageen suuqa uu qaraxu ka dhacay maamulka degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose wali kama aysan hadlin qaraxaas ka dhacay suuqa ku yaala degmada Walaweyn iyadoo ammaanka maalmihii la soo dhaafay oo ahaa mid sii xumaanayay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka degmada Walaweyn ayaa tagay halka uu qaraxu ka dhacay iyaga oo halkaasi ka sameeyay howlgalla ay ku baadigoobayaan dadkii qaraxa ka dambeeyay walow aysan jirin cid la soo qabtay ilaa iminka labadii bishaan ay ahayd markii xilli habeen ah weerar bamgacmeed lagu qaaday hoyga gudoomiye ku-xigeenkii maamulka iyo maaliyadda degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose Maxamed Cabdullaahi Koosto waxaana weerarkaasi ku dhintay gudoomiye ku-xigeenkii maamulka iyo maaliyadda degmada Walaweyn iyo dad kale oo shacab ah oo goobta ka agdhowaa weerarka lagu qaaday Galmudug ayaa faahfaahisay howlgalla ka bilowday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ciidanka booliska iyo nabad-sugidda maamulka Galmudug ayaa magaalada Gaalkacyo qaybta Galmudug waxay ka bilaabeen howlgallo lagu sugayo ammaanka kaas oo laga sameeyay wadooyinka dhexmar magaalada Gaalkacyo howlgalladan ayaa ahaa mid ka dhan ah gaadiidka leh muraayadaha madow ee beensalka loo yaqaano waxaana saraakiisha ciidanku ay sheegeen in uu yahay mid lagu xaqiijinayo amniga guud loogana hortegayo cid kasta oo falal amniga darro ka geysanaysa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug taliyaha ciidanka booliska gobolka Mudug gaashaanle sare
taliyaha ciidanka booliska gobolka mudug gaashaanle dhexe qaasim shirdoon cali ayaa sheegay in howlgalkan uu yahay mid ka dhan ah gaadiidka muraayadaha madow iyo sidoo kale dadka ku dhex wato hubka sharci darrada magaalada waxa uuna sheegay in intii ciidamada booliska iyo nabadsuugudda ay ku guda jireen howlgalkan ay soo qabteen dadka magaalada gaalkacyo ku dhex watay hub sharci darro ah isla markaana dadkaasi la maxkamadayn doono maadaama ay jebiyeen amarkii maamulka galmudug gudoomiyaha gobolka mudug cabdiraxmaan diiriye ayaa u mahad celiyey ciidamada qaybahooda kala duwan ee howlgalkan fulinayay amarkii soo baxayna maamulka galmudug ku howlgalay kana bilaabay magaalada gaalkacyo waxa uuna sheegay in uusan jirin cid shakhsi ah oo qori ku dhex wadan karta magaalada gaalkacyo howlgalkan ayaa waxa uu daba socdaa amar dhawaan ay soo saareen maamulka galmudug oo ahaa in gaadiid kale muraayadaha madow aysan dhex mari karin magaalada gaalkacyo iyo sidoo kale in dadka wata hubka sharci darrada aysan dhex mari karin magaalada gaalkacyo waxaana tiro dad ah lagu soo qabtay howlgalkan intii uu socday daawadayaal weli waxaad daawanaysaan ood la socotaan wararka habeen ee faafi t v markaana akhbaraadka caalamka dadkii ugu badnaa ayaa ku guryo beelay daadad ka dhacay dalka Yemen sida ay sheegtay hay'adda UNHCR dad lagu qiyaasay 300 oo kun oo qoys ayaa ku guryo iyo xoolo beelay daadad dhawaan ka dhacay dalka Yemen waana 3 bilood ee ugu dambeysay dadkan ayaa waxa hore u saameysay colaadda daba dheeraatay ee ka jirta dalka Yemen meelo badan dalka Yemen waxaa xilligan ka socda dagaal jirsaday muddo 5 sano ah waxaana hay'adda UNHCR ay sheegtay 80% dadka ku nool dalka Yemen ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo xilligan ay la daaladhacayaan dhibaatada xoogan ee ka soo gaartay dalka Yemen ayna ugu darsameen daadadka daawadayaal intaasi waxa ku dhan wararka habeen oo aad kala socoteen channelka Faafi TV waad ku maasantiin la socodka ila saanqaadka warkeena habeen markii kugu horeyso oo soo booqato channelkan ha ilaawina tira subscribe kadibna taabatida calaamadda gambaleelka si ay ku soo garaan wararkii ugu dambeeyay ee 24 saac ee la soo dhaafay ka dhacay dalka iyo dibadiisa